Abdi waxaa ku dhashay gobolka Sanaag meel 30 kiiloomitir u jirta oo la yiraahdo Muqdisho. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha dadka u qiimaha badan halkaan naga daawanaysan waa channelkii baahinta wararka fadlan naga cusub tahay laba shuruudo kaliya daawadana video like gare channelka subscribe saar kusoo dhawo muuqaal cusub. Welcome back with another video. Maxamed BK oo fanaanka caanka ah ayaa waxa uu iskaga baxay gabi ahaanba fanka hadaba walaalkiis oo ka waramaya sababaha uu fanka uga baxay ama sababihii ku keenay inuu fanka ka baxo walaalkii ayaa noo warami doona daawadayaal. daawasho wacan. Abdi waxaa ku dhashay gobolka Sanaag meel 30 kiiloomitir u jirta oo la yiraahdo Muqdisho deegaan barwaaqa ilaahay ku manaastay wax soo saar tub qulqula. anigu waxaan la dhashay 13 qof waa laba buqad waa turan waa saddex si kala dadku barato حوي تدرون ويلي اللي حمد قانونه ما شاء in kasta oo Maxamed iyo Cabdishakuur yihiin walaalo aan la kala sumad garan haddana waxay kala mareen laba dariiq oo kala jaada. haddaad aragtay BK oo heesayo walaalkiisa ka yar ee aan laga cayn garan aan laakiin aad wuxuu kaga duwanaa qoboladii kale waxa ay waxa jirtay safar uu baxay mar Czechoslovakia barnaamijkii heesaha hirgalay hawladii waa bari fanaaniin badan ku soo baxeen wuxuu ahaaba ku qiimeeyay nin wadaniya buu ahaa Allah naxariiste waxa jirta hees wadaniya oo laga gobanimo oo aaba markaas sameeyay Maxamedna laxanka saaray heesa fara badan oo aaba sameeyay baa jirta oo aan wali la qaadin laakiin aanu hayno laakiin heestaas aan baxday oo Maxamed qaaday runtii abwaanimadu horta waa hiddo Allah naxariistay aabahaysa la baxsan ayaa ahaa abwaan markaa aabun baan ka raacnay markaan wax badan baaray sida awowgay Cabdi Xasan isna wuxuu ahaa qalanbaawi reerka aan ka soo jeeday reer abtigayna yaabay hayeen oo gabiga looguma tegi jirin. waxaan weydiiyay goorta uu hal abuurnimadiisa ogaaday iyo waxa uu curiyay. abwaanimada waxaan isku arkay markii aan dhiganayay dugsiga hoose dhexe dugsiga sare 2012 maraan ahaa galaaska fonto ayuun baan hibadeyda markaa arkay inaan soo bandhigi karo oo ardayda igu kaliftay bal inaan wax ka curiyo inaan heesaha inaan dhexgelin ayaan waxaan jecelahay bal inaynu bal kala saarno af Soomaaliga iyo maansada. runtii af Soomaaliga laba loo qaybiyaa waxa la yiraahdaa af iyo af ugu. afku isna laba loo qaybiyaa waa af guri iyo af gobol. af ugu marka la joogo fiidiyogan oo aad u dheer daawadayaal ayaa waxa uu ku sheegayaa walaalkiis oo laga garan midab ahaan iyo dharar ahaan iyo sidoo kaleba jir ahaan uma eeg walaalkii uu soo sheegay inuu la dhashay kana yar yahay ayaa waxa uu ku sheegayaa sababihii uga baxay fanka. haddaba Sheekh Aadan Warsame oo aad u taqaanaan ayaa isna fariin u diray fariin adag Maxamed BK oo hadda fanka iskaga baxay lana taliyayna bal isna daawasho wacan daawadayaal. أمامك رجال تابوا عن الفن الغناء والمعازف فاقتدي بهم فاتوب إلى الله توبة نصوحا. هذا دوني سر كاهو الرئي إلا قارسيو halka rag baa ka horeeyo ka jiitay oo fanka ka toobad keenay oo heesaha ka toobad keenay ku dayay iyaga oo toobad naba oo shuruudaheedii dhameysatay. halkan kugu soo dhaweynaya waxay tahay ku daya Cabdilaahi Diiriye Sooraad ku daya Sulfe ku daya dhalinyarada nujuumta geeska ee adiga kula filka ahaa ee fanka iskaga tagay sida wiilka yar ee la oran jiray Axmed Biif markuu heesayo hobalada la heesayo hablaha Axmed Biif baa loo yaqaanay laba goorna xaramka tagay xajka weyna sugaya muxaadaraad qabanaya imaka wareegaya oo ku baaqaya inay dhalinyaradu masaajidda ku soo noqdaan iyo markaa cibaadada markaa iyo salaaxa
ee loo bixiyey axmed alkhayr la yidhaahdo imaka adi waxaan kuugu baaqayaa magac baan kuu hayaa waxaanan kaa rabaa codka macaan xanjaradan ilaahay niqmaduu kuu geliyey iyo mismaarka heesta macaan inaad ka rogto ka rogo haddana saar qur-aanka ku bedeli kun daaciyan ilallah daaci baaqa aad noqon tacaal ila almimbar halka nooga khudbadee tacaal ila almixraab mixraabka qur'aankoo macaan nagu tuki sida wiilasha aan kuu sheegaya ragga odayaasha ee hore haddaad sidaas samayso magac qurux badan baan kuu hayaa BK maxamed BK baan kaa bedelay waxaan ku leeyahay maxamed mubaarak yaa maxamed mubaarak tacaal ilaa haada alismi aljamiil magaca quruxda marna dooro u kaalay adeer baan ku ahay wiil yar baa tahay waayaha adduunyadana waan kaaga soo horreeyey adiga iyo intaad calanka u sido ee dhalinyarada geeska soomaaliyeed iyo qaybkeed kaalay calanka runta u qaad calanka tawxiidka kaalay u xambaar kaalay qiblada ilaahay u jihee qiblada reer galbeedka yahuudda iyo nasaarada kuwa durbaanada kuwa tubay ee lugaha isugu kaa dhuftay ee kaa caqli badiyey ee ku dhahda waxa lagu hormara mataqaan alla waxa loogu dhammaado dee waxaynu ku odhan doonaan maraykanku idinka saanad iyo dhaqaalo badane ilaahay baa jecel oo ilaahay idinka dhow yaynu ku odhan doonaan haddaynu saa ka aamuso sooma haddee kama aamusayno akhi alfannaan waxa aan ku leeyahay anigu ii dhegayso أمامك رجال تابوا عن الفن الغناء المعازف فاقتدي بهم فاتوب إلى الله توبة نصوحا حتى دوني سرقاه الرئي haddaba gabagabadii daawadayaal waxaa isa soo talaya fanaaniinta iskaga baxaya fanka kana tashaday inay isaga baxaan fanka gebi ahaanba sidaa uu sheekh aadan warsamo soo sheegay waxaa ugu horeeyey fanaaniintii ugu horeysay ee ka baxay fanka waa fanaan axmed biif loo yaqaanay kadib markii uu la baxay axmed alkhayr isagoo haddana daaci ah dadkan ugu yeedhay inay cibaadaystaan cibaadada ilaahay sidoo kale waxaa isaga baxay fanka wiilkii dada yaraa ee raabka haystay wafiije xabiib oo hadda tabliiq ah kuna baxa markiska tabliiqiga ee weyn ee magaaladaasi hargeysa badana isagoo hadda tabliiq ah diinta islaamkana faafiya markii horena sharwadan ahaa sidoo kale waxaa isna fanka ka tashaday cabdihani cali xaashi oo taqaana isna fanaan dadka soo jiita cod iyo muuq iyo dharar iyo qaabba dadka soo jiidan jiray ayaa isna ka tashaday fanka kadib markii la tusay ama uu ku riyooday riyo ka mid a riyooyinka sidoo kale waxaa fanka ka tashatay iyaduna xamdo yar oo iyaduna ku jirtay fanka islamarkaana ka mid ah fanaaniinta aadka u da-da yar ee ka tashaday haddaba waxaan fanka la idhaa daawadayaal ama fanaannimadu ma aha wax dadka aad ku gaadhaysa hadaf iyo meel balse waa wax aakhiriya adduuntoona aan faa'iido ku lahayn haddaba daawadayaal waxa aynu ka digaynaa inayna fanaannimadu wax adduun ah aanay wadan balse ay tahay un mataacun quruur waa raaxo yar oo laysku dagayo oo wax allaali iyo waxay kuu taraysaa aysan jirin haddaba intiin muuqaal kale ku kulmi doono oo anigoo baahinta wararka fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe dheh calaamada kambareelkana furo ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu wax allaaliya waxaad niyadda ku haysa ilaahay kuu rumeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu